dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar lagu qaaday gudoomiyaha maamulka degmada Walaweyn iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee degmadaasi oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Weerarka oo geystay khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa qaaday maleeshiyaad hubeysan kadib goobta ka dhaqaaqay. maleeshiyaadka ayaa la sheegay in mar qura ay rasaas ooda uga qaadeen labada mas'uul xilli ay dhex socdeen bartamaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. sidoo kale waxaa intaasi kadib dagaal kooban aan iraahday u dhexmaray ragga weerarka geystay iyo sidoo kale ilaalada la socotay gudoomiyaha Walaweyn iyo ku-xigeenkiisa maaliyadda. inta la xaqiijiyay waxaa shaqaaqadan ku dhintay ugu yaraan hal qof halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo isugu jira ama oo ku sugnaa aan iraahday goobta ay wax ka dhacayeen. marxuumka geeriyooday oo dhalinyaro ahaa ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cabdunaasir Maxamed Ibrahim Abow wuxuuna ka mid ahaa dhalinyarada caanka ka ah deegaankaasi. macada waxa ay yihiin maleeshiyaadka weerarka geystay iyo sababta ay u beegsadeen mas'uuliyiinta maamulka degmadaasi. xaaladda ayaa haatan ah mid aad u degan, mana jiro wax hadal ah oo ka baxay mas'uuliyiinta iyo saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan dhinaca dhacdadaasi. Walaweyn ayaa waxaa inta badan ku soo laalaabta khilaafaad dhanka maamulka ah, waxaana haatan taagan xiisad u dhaxayso gudoomiyaha maamulka degmadaasi iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada oo ilaa iyo hadda aan laga gaarin xal rasmi ah.